haatana Puntland maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ay masaafurinayaan 3 qof oo u dhalatay dalka Kenya oo lagu eedeeyay inay isticmaalayeen dokumentiyo been abuur ah oo ka been sheegaya xirfadooda caafimaad. Mas'uuliyiinta maamulka Puntland waxay sheegeen in shakhsiyaadkaasi ay fuliyeen hawlo caafimaad ayna ka hirgeliyeen dalka dad doonayay inay macaash ka sameeyaan xirfad been abuur ah. Warbixintan waxaa magaalada Garowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb. wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Cali Cabdullaahi Warsame oo waramaya saxaafadda ayaa sheegay in 3 u dhashay dalka Kenya oo sheegtay xirfadlayaal caafimaad ay ogaadeen intaasi aysan waxba ka jirin dalkana ay ka saarayaan. waxayna ka kooban yihiin shakhsiyaadkaasi 3 shakhsi ay ka kooban yihiin u dhashay dalka Kenya intii muddo aan ku dhuumaalaysanayay gobolada Puntland oo hadda meel tagayay kana shaqeynayay waxa watay oo horboodayay oo u suurtageliyay inay shaqooyinka noocaas dadka ay ku dhex dhuuntaan qaar ka mid ah dadka reer Puntland dadka noocaas xirfadlayaasha sheeganaya dhakhaatiirta sheeganaya qaar badan dhibaatooyin fara badan ay u geysteen shacabkeena la soo kireystay si lacag looga sameeyo. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa tilmaamay inay arkeen dokumentiyadii ay wateen kadibna ay baaritaano dheeraad ah ku sameeyeen. markaanu dabagalnay xogta dalka xilligay soo galeen iyo meelahay ka shaqeynayeen waxaa noo muuqatay in muddo 2 sano ah inay hadda dalka ku sugnaayeen ee maalinba magaalo iyo tuulo tagayeen. waxaa dib u raacnay dokumentiyadii ay wateen oo shahaadooyinka ay sheeganayeen inay jaamacada ka soo baxeen. waxaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Kenya dadkaas oo dad Kenyaatiya jaamacadda sheegeen inay ka soo baxeen. waxa intaba ay noo xaqiijiyeen in aysan shahaadooyinkan aysan bixin digriga noocaasa. runtii markaan fiirinay dokumentigana uu ka muuqday inuu yahay dokumenti foojira oo waraaqo la sameeyay ay ahayd. wasiirka caafimaadka Cali Cabdullaahi ayaa sheegay in arrimahan ay ku kaliftay in guud ahaan ay xirfadlayaasha caafimaad ee ajnabiga ay ka howlgala goobaha sida gaarka loo leeyahay ka joojiyaan shaqada si ay u hubiyaan sheegashadooda dhakhtarnimo. waxa wasaaraddu ay ka joojisay dhammaan dadka ajnabiga ah ee ka howlgala xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay waxaana lagu wargeliyay in ay 7 maalmood gudahood ay ku soo yimaadaan wasaaradda caafimaadka xarunteeda dhexe ee magaalada Garowe lana yimaadaan waxa la wixii aqoonsiga dokumentiyo oo ay leeyihiin. waxaa sidoo kale aanu wargelinaa dadweynaha reer Puntland meel joogaanba in ayaguna ay ka foojignaadaan. wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan dad Soomaali ah oo iyagana sidoo kale sheegta dhakhtarnimo kuwaas oo aqoontooda aysan gaarsiisnayn. waxaa kale oo iyadana aanu dadweynaha u sheegaynaa inay ka taxadaraan kana foojignaadaan qaar kale oo iyaguna Soomaali ah oo aan ognahay oo liisaskooda hadda aanu hayno oo dacaayado fara badan idaacadaha ka sii daaya intii muddaana hawshaas ayaga ku jiray hadba magaalo taga meeshii markaasi looga kaco ama dadku ay ogaadaanna ka tago magaalo kale u guura. waan ognahay qaarkood hadda inay gaalkacyo joogeen oo hadda ay Boosaaso u wareegeen oo hadda ganacsiga Boosaaso iyo xayisiiska hadba meelan laga aqoon la tagayaan. dadka noocaasna ayagana waxaan uga digaynaa in dadweynaha ay iska ilaaliyaan. dadka la tilmaamayo oo ajaanib iyo Soomaaliba ah ayaa wasaaradda caafimaadka ku eedeysay inay xitaa gaaraan tuulooyinka iyo miyiga iyagoo qoraya daawooyin sameynayana baaritaano caafimaad. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in dadkaasi ay dhibaatooyin bulshada u geysteen iyagoo u qoraya daawooyin aan bukaanka loogu talagelin. runtii dhibaatooyin badan ayay geysteen oo cabashooyinka bulshada aad ayay u soo badanaysaa sababtoo qofku markuu xirfadiisu aqoon u lahayn dhibaatooyin badan uu geystay kuwa waxay dhimid baan toosinaa dad bay muxuu ahaa diragelgeliyeen dad kuwa daawooyin bay iska qoreen runtii qaarkood munaasib ku ah in la qoro waxyaalo badan oo waxaanu haynaa cadaymaha dhibaatooyin haddii arrintaas ay sii socoto bulshada dhib weyn u keeni kara. waxaanu ognahay xataa aanu listi haynaa hadda in xataa shaybaaro badan ay joogaan dad muxuu ahaa sheeganay inay shaybaarista yihiin oo dibaddan la keeno ajaaniba laakiin aan aqoontii qaar ka mid ah aysan lahayn. waa markii ugu horeysay oo ay Puntland arrintan ka hadasho iyadoo dalka ay ku sugan yihiin 100 dhakhaatiir ajnabi ah kuwaasoo badankood ka shaqeeya goobo si gaara loo leeyahay muddana ku sugnaa dalka. Nuux Muuse Barjeeb VOA Garowe.